kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadlayno shirweynihii aqoon-yahanada Soomaalida ah ee ku nool wadamada Geeska Afrika kuwaas oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee caalamka iyo waliba wadamada ay Soomaalidu degaan ee Geeska Afrika. shirkan oo ka furmay guriga ummadda ee waddankani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socotay qaybaha kala duwan ee Soomaalida ay degtay wadamada Geeska Afrika. waxa kulankaasi dadka ka soo qayb gala u badnaa aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo waliba madax sare oo dawladihii hore ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka soo noqday. waxa sidoo kale ka soo qayb galay aqoon-yahano Soomaaliyeed oo ka kala yimiday shanta qaaradood ee caalamka kuwaas oo u yimid ka qayb qaadashada kulankani. kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay macadka Heritage oo saldhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaana kulankani lagu qabtay waddankani Jamhuuriyadda Djibouti martigelinaysa dawladda Djibouti iyadoo fikradda kulankanina uu lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele. kulankani ayaa halkudhaga sanadkani wuxuu ahaa tiigsiga xasiloonida nabadda iyo horumarka waxaana mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay ay halkaasi ka jeediyeen doodo kala duwan oo laga doodayo sidii Soomaalida ku nool wadamada Geeska Afrika ay u noqon lahaayeen dad ka midaysan dhinacyo kala duwan haddii ay noqon lahayd horumarka, iskaashiga, ganacsiga iyo amniga intaba. waxaa sidoo kale goobtaasi hadal ka jeediyey wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalkani Djibouti Muumin Xasan Barre oo insha Allah taala ka wada shaqeyn doono waxa ka soo baxana sidee baa loo dhaqan gelin waxaan iloomin marba inaan mahad celiyo aan hambaliyayo macadka Heritage walaalahay ka madaxa oo had iyo jeer ku hawlan arrimihiisa sidee u gelinayeen waxaan u rajaynayaa inay joogteeyaan kulanada sidana shirkuna uu furan yahay walaalayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaa kadib waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamaal Xasan waxa uu warbixin guud ka bixiyay xaaladda guud ee Soomaaliya. kulankaasi markii uu soo gabagaboobay waxaan waraysi la yeelanay wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamaal Xasan waxa uu ka warbixinayaa kulankan iyo ahmiyadda gaarka uu leeyahay. bismillaahi rahmaani rahiim aad iyo aad u mahadsantihiin marka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dawladda Djibouti oo noo suurtagelisay in maanta halkan soo wada nimaano maxadka Heritage oo soo abaabulay kulankani kulan siyaasadeed ma waxa weeye kulan ay isugu yimaadeen aqoon-yahan iyo mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhammaan wadamada Geeska Afrika wadamada Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada Ethiopia, Djibouti iyo Kenya oo dadka Soomaaliyeed degan yihiin. halka waxa laga hadlayaa si bal dadka Soomaaliyeed ee ku nool mandaqadan ay isu kaashan lahaayeen dhaqaalahii isdhexgalkii wada shaqayntii iyaga oo la jaanqaadaya waqtigan cusub adduunka ku jiro sidii loo kobcin lahaa waxyaalo fara badan oo bulshooyinka Soomaaliyeed gobolada ku nool u baahan yihiin dhinaca aqoonta, dhinaca ganacsiga, waxyaalahaas oo runtii waxa weeye waa aqoon isweydaarsi fiican waa kulan wanaagsan waxaan rajaynayaa haddii Alla idmo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan. kulankan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa 22 bisha aynu ku jirno waxaana muddadaasi uu socdo looga doodi doonaa arrimo dhowr ah oo la xiriira iskaashiga Soomaalida ku nool wadamada Geeska Afrika. madasha aragti wanaaga Soomaaliyeed oo ahayd ujeedada gunta u ah kulanka ballaaran ee ka soconaya waddankani Jamhuuriyadda Djibouti taasoo lagu muujinayo hanaanka istiraatiijiyadeed ee ku aadan dhinaca aqoonta si loo helo Soomaali isku meel u jeeda marka loo eego dhinacyada amniga, horumarka iyo dhaqaalaha intaba. goobtaas ayaa waxaa ka jeedisay xildhibaan Caashe Xaaji Cilmi oo kamid ah aqoon-yahanadii Soomaaliyeed oo kulankaasi ka qayb qaadanayay waxayna tafaasiil ka bixinaysaa muddadii kulankani uu socday. bismillaahi rahmaani rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane madaxweyne 17 sano ka hor waxaan halkaan uga hadlay oon ku iri arrinta Soomaaliya markay shirweynihii cidna uma maqna ceelna uma qodna maanta waxaan ku leeyahay cidna waa heshay oo adaa u noqday ceelna waa u qodan yahay oo dawlad bay leedahay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele wasiirada iyo xubnaha kale ee Jamhuuriyadda Djibouti
xubnaha wasiirada iyo xubnaha kale ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta Somaliland xubnaha wakiilada deegaanada Soomaalida xubnaha bulshada rayidka ah ee deegaanada Soomaalida bahda heritage iyo CERD aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee geyiga Soomaaliya iyo dunida kaleba ka kala yimid bahda warbaahinta anigoo aan wixii habmaamuus ah ka tagin mudana madaxweyne walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo muddadii u dhaxaysay 18 ilaa 22 bishan December sanadka 2017 waxaa magaalada Djibouti caasimadda waddanka jamhuuriyadda Djibouti ka qabsoomay madasha aragti wadaagga Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabiyeen machadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho madashan oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano xirfadley siyaasiyiin ganacsato xildhibaano iyo waliba dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay oo ka kala socda dhammaan deegaanada Soomaalida ee gobolka Geeska Afrika iyo daafaha caalamka mudana madaxweyne xilligii uu socday kulankan taariikhiga ah oo qiimaha badan waxaa lagu gorfeeyay xaaladda Soomaalida ku nool Geeska Afrika gaar ahaan waxaa qoomiyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Geeska Afrika mudana madaxweyne doorka aad ku leedahay waligaana aad ku lahayd nabadeynta iyo dib u dhiska Soomaaliya iyo guud ahaanba kaalintaada odaynimo waa mid taariikhdu xusi doonto annaguna aan markhaati nool ka nahay mudana madaxweyne waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurmo ah mar xusuus ah marna fariin culus iyo mas'uuliyad cusub oo dusha ka saarayna waxaan madaxweyne aan door aad u bidnay oo sharaf noo ah inaan ku siino waxaan isla garanay inaanan horta abaalkaaga gudi karin waxaan marnay meelo badan oo geyiga Soomaalida ee gobolka ah waxaan raadinay wax ku qalma oo aan qalbigaaga ku haran karno waxa aan soo weynay wax ku qalma sida hore u sheegay wax ku qalma oo aan ka ahayn inaan ku guddoonsiino kutubka Quraanka ah kaasoo aan ku qanacsanahay kuna qanacnay inuu u qalmo fariinta culus ee jacaylkeena aan ku qabna uu gudi karo mar hadduu yahay kalaamkii Allah subhanahu wa ta'ala xurmo ka weyn oo la bixiyaana aanay jirin mudana madaxweyne mudana madaxweyne waxaan jeclaan lahayn inaan ku xusuusino inay muhiim tahay inaad noo samirtid inaad noo ducaysid iyo inaadan naga harin haddii aan ku qurxino iyo haddii kaleba iyo inaad tahay oday Soomaaliyeed oo aan wada fiirsanayno mar haddaan intaas idiri mudana madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad sii wado dadaalka aad ugu jirto horeyna ugu jirtay in Soomaalida gobolkaani wehel iyo walaal ay isku haleeyaan aad noo ahaatid ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku xafido waxaan u fadhinaa saakay inaad nala hadashid ood waliba qalbigaaga ka hadashid waxaan xasuusanahay oo qalbigayga ka go'i karin
shirkii carta maalintaad oyday oon kula wada oynay oo wixii caqabada ahaa aan gudubnay qalbigaagaad nala hadashay qalbigaagaad na taabsiisay mudana madaxweyne mar kale ayaan waxaan kugu fadhinaa inaad qalbigaaga nagala hadashid mudana madaxweyne kulankan taariikhiga ah oo qiimaha badan waxaa xusid mudan inaan carabka ku dhifano oon qirno adiguna aad lahayd odaytinimadiisa iyo gogosha aad noo fidisay sida caadada ku ahayd abaabulkiisa ay lahayd hay-adda Soomaaliyeed hay-adda Heritage ay lahayd xalay waxaan u dabaaldegnay oon goynay toortihii 5 sano bay gaartay waxaan niri marka anagu waa soo umulisan ka ahaa maxamed afrax daahir afraxna wuxuu ka ahaa gardaadiye waa soo gardaadinay agahay isku taagtay 5 haday jirsatay mudana madaxweyne adigu inaad gacanta qabato waa socon kartaa baan ka rabnaa mar kale iyo kun jeer iyo mid aan dhamaanayn madaxweyne jacayl aan dhamaanayn xurmo aan dhamaanayn kalsooni aan dhamaanayn baan kugu salaamaynaa kuuna haynaa mudan madaxweyne intaa kadib waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele bismillaahi raxmaani raxiim salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoon-yahan iyo sida aad sheegtay xildhibaan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tujaar waaweyn waxaan sheegay ma aha ganacsiga yaraa maaha rag waaweyn waxaan sheegay halkani hadashani heritage iskugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynayna waxaan arkayaa wejiyo badan oo aan isku da'nahay iyo kuwa naga yaryarba way dadku isku dhex jiray haddana waxa aan xasuusnahay wixii aan dadaal soo galnay heritage-na warkeeda waan maqalnay 5 sano iyaan soo gardaadinaynay baa tiri oo haddeetool waa sara joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynisadii ragga culimada ee halkaa isugu yimid ku bahoobay in ay waddanka waktigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibradooda intaba ay isugu geeyaan hagarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso ninna inaanu is odhan ama waa la iga leeyahay waa la iga xigaa waa la iga aqoon roonya waa la iga karti badan yahay inaanu odhan oo uu siiyo waktigiisa qayb inuu ka siiyo inuu ka hor keeno aaraa kale oo laga yaabo inaanay isku mid noqonin ama ay iska hor jeedaan ama ay isdiidan yihiin laakiin kolka la doodo aan wada hadalno waa aan heshiina bay Soomaalidu jirtaa markaa dee ummadda Soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectigu wuxuu ahaa Soomaaligu maqaamkiisu halkeebuu gobolka ka jooga Soomaa dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane qofka Soomaaliga ah ee yani inuu noqdo qofkii dadka kale soo jiiday ku biirinaya aqoon iyo kalgacal
la wadaagayay dhib iyo dheefba u ogolaada inuu aqbalo ama uu soo dhaweeyo in ay wax u dhexeeyaan wax ka dhexeeyaanna labadaba in uu meesha uu joogo Kenya ha joogo Ethiopia ha joogo Djibouti ha joogo Soomaaliya ha joogo Somaliland ha joogo waxa uu yani yahay isaga oo isgaranaya in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa mujtamacayaasha uu la nool yahayna communitieska uu la nool yahayna inuu ka dhalaalo ama uu ka muuqdo ama uu noqdo dadka wax ku oolka ah ee mujtamacaas jooga dadka Soomaalida kalena uu baro dadkaas ay wada nool yihiin jinsiyadda iyo qowmiyaddu waa laba ayaan anigu wax isbaarinay tahay kolka dee qowmiyad laga hadlayo weeyaan kolka aan leeyahay maaha Soomaali inuu noqdo qof hostile ama la jirdiiday inuu noqdo maaha inuu noqdo nin dadka soo dhaweeya inuu ka ciyaaro doorkii uu ka ciyaari lahaa meel uu yani ku nool yahay ku dhashay oo yani madheertiisu ay taallo inay tahay kolka uu aqoonsado ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf inuu kula noolaado maanta doodiinu waxaan u malaynayaa inay taa ahayd waxa aan dee isleenahay Djibouti marka aynu joogno aqoon-yahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo carta aan joogi jirnay oo aan mar kasti oo loo baahdo in la furdaamiyo Soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa yani dadkii ka tala bixinayay markaas wixii alla qorana uu dhacaa wixii dadweynuhu ama rag ku hagaaga mas-uuliyadna sidii wax looga qaban kara ee dadku uu hagar la-aan u hadlay ama uu qalbigiisa ka hadlinayo inuu ogaado in isaga wax laga sugayay inuu ogaado maanta diasporaa wax la yidhaahdo ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi ka sokow jiil cusub oo wax bartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda Soomaalida weeyaan dadkaas oo dee maalna qaarkood ay qabaan u baahan yihiin inay ka qayb geliyaan ama ay uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkoogaba inay uga faa'iideeyaan oo haddii dee yani turunturooyin badan ay soo mareen diasporadana ku dheegada in la eego maxaa yeelay waxa ay keeni kartaa ama ay keentayba qaarkood in waxyaalo aanan fiicnayn ama oo ay ugu horeyso qabyaaladii inay dhalisay inay dadka diasporaaga yihiin weli qaarkood ay ku dheggan yihiin oo la moodo inay dhiirigelinayaanba yani qabyaaladda iyo kala duwanaanta ummadda oo laakiin wixii ugu weynaayo waxa uu yahay annagu waxaan u aragnaa inuu yahay wax positive oo wadano badan kolka la eego oo kale ay mar walba dadka diasporagu ay waddankooga wax weyn u tareen Soomaaliduna maanta waxa ku socotaba dhaqaale ahaan Soomaaliya haddaan eegno waxa weeyaan waxa ay keenayaan dadkaasi ay dhaqaalaha ku soo kordhinayaan iyo economic ahaan wax weyn wax tar weyn u leh
aqoonta marka lagu daro iyo maskax maalkana waxay keenaysaa in horey loo socon karayo halkii dee carta markaan ka hadlayay ee kursigii soomaaliya laga rafacay yani united nation ee laga qaaday au ee laga qaaday arab leaga kolkii aan hawsha u horreeyay een galnay aynay ahayd in lagu celiyo meeshoodii codkoogii la siiyo ayagu ay isdaafacaan ayagu ay waddankooga dhistaan wax iyaga ka dhexeeya oo u diidaya inay waddankoogii ay malihiisa ay iyo taladiisaba inay qabsadaan aanay jirin halkaas iyay ahayd waxa aan u dadaalnay awalkii ilaahayna uu nagu guuleeyey dhib badan hadday tahay laakiin wax badan baan ku baranay dadkii dee soomaaliyeed maanta mustaqbalkooga iyaga iyaa gacanta ku haya ayaga iyaa tashanaya ayaga iyaa meesha ay marinayaan iyo waddada ay ka saarayaan ay dhibta ay kaga saarayaan ayagay u taalla saldhigguna waxa uu yahay nabadda ixtiraamka iyo wada shaqaynta dee qabyaaladuna waxay ku dhex jirtaa xididkeenna ayay ku dhex jirtaa haddii si positiifa loo adeegsadana waa wax laysku aqoonsado haddii si xun loo ugu camal falana cadaawo aan dhammaanayn bay abuurtaa experiencena waad u leedihiin waad aragteen waxa ay keenayso oo aqoon-yahan wax qoray oo fikiray oo kolka buuggiisa aada u dhiibta dee wuxuu odhanayaa xagga dambe u eegayaa wuxuu leeyahay yaa qoray doonaya hadduu noqon waayo aba akriya iyaba aba akriya taasna waan aragnay oo waxaasay yaa waxyaalada negatiifka ah ayay ku jirtaa laakiin guud ahaan inuu dadku istaageero wax wada qabsado ilaan haddii qabyaaladdu ay keenayso inay dadku kala firdho way isku soo dhaweyn kartaa iyadu ku dhihi oo abti iyo seedi iyo gacal iyo waxaad kastaba dadku uu isku yahay iminka ahaan sawiya inkastoo islaynayaan haddana way isku soo dhow yihiin oo dadka kale way iskaga dhow yihiin yaan leenahay dee tafaa'ulkuna waxa uu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wassalaam tafaa'alu lkhayra tajiduuhu wax helaysaane u yeedha khayrka ku fikira khayrka waana ni iman doonaay marka hawsha aada maanta gasheen wixii aniga aada isaaraysaan annagu waxaan nahay dadkii idin adeegayay waan ka xanuunsanaynaa in ay dhibaata un aan maqalno ciidankeennu marka uu halkaa joogo isagoo dadka ugu yar waxaan fariimaynaa inay magaranaysaa ay hawsha nabadeynta ka sogow in ay ciidanka soomaalida ay wax baraan Deeqba
deeba kugu furay gogol dacadood ku dawowdayo deeba kugu furay ducaan kugu yeedhayaaye hadday barse door bidaa ducaan kugu yeedhayaaye hadday barse door bidaa rag iyo dumar la guntaday rag iyo dumar la guntaday ummadu way taalan tahay ummadu way taalan tahay darxumo way soo martay dabiibay u baahan tahay وكان اسكت باردي ورس فيها دولة بيربطها أمدو ويتعلم تهي أمدو ويتعلم تهي درحوة ويسا مرتي طبيبي يباها تهي وكان اسكت باردي ورس فيها دولة بيربطها أمدو ويتعلم تهي أمدو ويتعلم تهي دقنان هشيو دكسيو ونبت بيربطا دقالا دريالا إيا مامول داتي يربطا دقرنا صدريو كرمت دقدقي ربطا ومكاهيل عبد الرشيد برا وبرنامج كان كسو دياري ودنك جمهورية جيبوتي oo idin leh sida iyo nabadgelyo